الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. guud ahaan marka ugu horeysa ummadda reer Somaliland meel kasta ay joogto waa salaameynaa dal iyo dibadba. Waxaan rabnaa inaan kelmad yar ka idhaahno arrintii maalintii dhaweyd ka dhacday jeelka Hargeysa. Marka ugu horeysa waa ku cusub dowladnimada iyo caalamka midna maaha in shaqaaqo ama nin maxbuusi uu qalaalaase ka sameeyo jeel ama uu amar diido ama uu sameeyo waxaan looga baahnayn. wax ku cusub maaha, waa sunno soo jiray sida loola dhiilgareeyo iyo sida loo maamulana waxaa yaqaana ciidanka iyo dadka loo tababaray ee haya. taa waxaan leeyahay ummadda reer Somaliland aynu u dayno shaqada cidda loo igmaday ee dastuurka iyo dowladnimadu u igmatay. qolada saxaafadda waxaan leeyahay qof bini aadana oo aan dambaabini ummaddu maaha macsuumiin. ummad baynu nahay fara badan, dad aad u fara badan baynu nahay oo sharci iyo dowladnimo samaystay. cid kasta oo dembi gasha waxaynu samaysanay qaab loo hay-ado dastuuriya oo ku shaqo leh. qofna intuu qof soo xidho gurigiisa kuma xidho ama meel uu geyn karaa ma jirtay. hay-adaha dastuuriga ah ayaa lala dhiilgaraynaya. saxaafadda wixii hadda xidhan waxaa loo mari doonaa waddada sharciga ah annagoo aan ka tegayn iyo iyadoo loo eegayo in dhallinyaro fara badani ay ku xidhan tahay intaba. waxaana la eegi doonaa sida sharcigu qorayo cidda dembi gashay iyo cidda aan dembi gelin. cid alle ciddii dembi aan gelin waa la sii dayin doonaa, sharcigaana sii dayin doonaa. ciddii dembi gashayna way arki doonaan dadku. markaa qaran ahaan waxaanu nahay dal sharci iyo kala dambayn leh. waanaba waa ka xunnahay, ma jeclin mana jeclaysan doono inta tiradaa la-eg oo saxaafadda ka shaqeeya la xidho. laakiin haddii qofku uu dembi galo, qof kasta oo muwaadina oo dembi gala dembigiisa waa lagu qaaday. askarta xaq bay u leedahay inay qabato, maxkamad la geeyo, dastuurka iyo maxkamadaha sharciga dalku wuxuu ka qabo la maro. aad iyo aad baan u salaamayaa. waxaana leeyahay si dhaqso ah ayaa looga warheli doonaa. wixii dembi aan gelinna waa la sii dayn doonaa. wixii kalena sharciga ayaa sheegi doonaa meesha ay iyo qaabka loo maamulay.